kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxa kamid ah dawladda Kenya oo magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ka saaraysa ciidamada maamulka Jubbaland kadib cabasho ballaaran oo ka timid siyaasiyiinta waxgaradka iyo maamulka gobolka Waqooyi Bari oo ku aadan in ciidamada Jubbaland si degdeg ah looga saaro magaalada Mandera midowga Yurub oo ku goodiyay inay guud ahaanba joojin doonaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya haddii aan degdeg loo soo gabangabayn xiisada u dhaxaysa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo qaadacay shirka ay ka talinta maamulka Puntland gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo qorsheynaya inuu xilalka ka qaado gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo ku eedeeyay inay ku fashilmeen inay xasiliyaan degmooyinka ay maamulaan Soomaaliya oo afar dal oo kamid ah wadamada caalamka ugu waaweyn ka mamnuucday inay yimaadaan dadkooda magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba Soomaaliya sababtu waa maxay wararka Garaati TV ayaad ku daawan doontaan akhbaaraadka ka baxsan wararka Soomaalida aad ku daawan doontaan warkeenana waxa kamid ah tiramada fiica oo lagu weeraray saldhig Mareykanku wax ka degan yahay oo ku yaala meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Baghdad ee wadanka Ciraaq iyo dawladda Iran oo u yeertay safiirka Switzerland u jooga magaalada Tehran oo asagu matalaya isbahaysiga Mareykanku uu hogaaminayo ee wadanka Ciraaq intaas waa qayb ka mid ah qodobada aad ku daawan doontaan wararka Garaati TV daawadayaal waqti wanaagsan kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin bahalkan waa Garaati TV fadlan daawadayaal joogto xilligii salaada soo tuka waajibka alle dibna u bilow inaad daawatid muuqaalkan kadib markaa soo gudatid waajibka ku saaran aynu ka horeyna dawladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay si degdeg ah ciidamada uga saarto magaalada Mandera ku sugan ee maamulka Jubbaland uu leeyahay kuwaas oo muddooyinkii dambe ay cabasho ka muujinayeen dadka deegaanka iyo waxgaradku iyadoo maalmihii ugu dambeeyay ay soo tarayeen dacwadaha iyo cabashada ka imaanaysa shacabka siyaasiyiinta waxgaradka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ee loo gudbinayo dawladda Kenya lana dalbanayo in magaaladaasi laga saaro ciidamada maamulka Jubbaland ayaa dawladda Kenya mas'uuliyiinteedu gaareen dadaal dheer kadib qorshihii ugu dambeeyay ee ciidamada Jubbaland looga daadgureynayo magaalada Mandera mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ayaa xaqiijiyay dawladda Kenya ay qorsheynayso in ciidamada ku sugan magaalada Mandera laga saaro isla markaasna dib loogu celiyo deegaanada Jubbaland si looga baaqsado gacan ka hadalka dhaxmaraya maamulka Jubbaland iyo sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ee ka dhacaya xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya dawladda Kenya ayaa la filayaa inay diyaarado ku daadgurayso ciidamada qaar si ay ugu celiso gudaha deegaanada Jubbaland isla markaasna ay iskaga fogeyso xiisada u dhaxaysa maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Kenya ayaa go'aankan qaadatay kadib markii kacdoon shacab uu ka yimid gobolka Waqooyi Bari kaas oo lagu dalbanayo in ciidamada Jubbaland laga saaro magaalada Mandera maadaama ammaanka magaaladaasi uu halis yahay isla markaasna ay dadka shacabka halkaasi ku sugnaa intooda badan barakaceen dawladda wadanka Kenya tilaabadan ay qorsheynayso inay qaado waxay niyad jab ku tahay maamulka Jubbaland oo asagu gabaad iyo ka dhiganaya magaalada Mandera si uu halkaas ciidamo badan ugu aruursado deetana uu weerar ugu qaado dawladda Soomaaliya ciidamadeeda ku sugan magaalada Beled Xaawo dawladda Kenya ma aysan carabaabin goobta ciidamadaasi la geynayo balse waxay sheegeen saraakiisha gobolka Waqooyi Bari in Kenya ay iska fogeynayso ciidamadaas isla markaasna la geynayo meel ka baxsan xuduudka dawladda Kenya isla markaasna ay maamulka Jubbaland dib ugu celinayso ciidamada maamulka Jubbaland ee ku sugan magaalada Mandera ayaa markii hore intooda badan laga keenay deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka si loogu xoreeyo gobolka Gedo gacanta dawladda Soomaaliya looga saaro iyadoo ciidamada ay hogaaminayeen wasiirka amniga Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland kuwaasi oo ciidamada hogaaminayay dawladda Kenya
Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambeeta dhaleecayn kala kulmaysay beesha caalamka iyo sidoo kale dadka deegaanada gobolka Waqooyi Bari kuwaasoo dalbanayay in xiisada halkaasi ka jirta la damiyo si dadka deegaanku ay nabadgelyo u helaan. arrintan sidoo kale waxay ku su'aalaysaa iyadoo wada hadal ay meel wanaagsan u marayeen madaxda dawladda Soomaaliya iyo Kenya lana filayay in dhawaanahanba labada dhinac ay soo gabagabeeyaan xiisada dhanka xuduudka ee u dhaxaysa isla markaasna nabadgelyo buuxda lagu soo dabaalo deegaanada xuduudka dhaca ee gobolka Gedo uu la wadaago dalka Kenya. si kastaba ha ahaatee maamulka Jubbaland ee uu maamulo Axmed Madoobe ayaa iminka niyad jab xoogan kala kulmaya siyaasadda dawladda Soomaaliya ay ku gobolka Gedo iyo guud ahaanba maamulka Jubbaland. Midowga Yurub ayaa ku goodiyay inuu guud ahaanba ka doono taageerada uu siiyo Soomaaliya hadda sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeyn xiisada u dhaxaysa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa war qoraal oo soo saaray wax walaac xoogan kaga muujiyay xaaladda qalafsan ee ka taagan Soomaaliya xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya iyo sidoo kale midda u dhaxaysa dawlad goboleedyada iyo sidoo kale dawladda federaalka. xiisada ka taagan xuduudka ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyo ciidamada isku urursanaya gobolka Gedo waxay abuuraysaa xasilooni daro iyo khasaaro nafeed oo soo gaaray shacabka gobolka Gedo iyadoo welina xaaladdu ay sadeganeen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Midowga Yurub. sidoo kale Midowga Yurub ayaa intaasi sii raaciyay in dagaalkii dhamaadkii bishii tagtay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb uu abuuray xiisad sida ay Midowga Yurub sheegeen taasoo weli laga dareemayo deegaanada Galmudug. waxay sheegeen Midowga Yurub in xiisadaha ka jira Soomaaliya ay guud ahaanba wadadii ka leexiyeen kheyraadkii military ee lagu howlgali lahaa ee lagula dagaalami lahaa al-shabaabka ku sugan gobolka Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe ayna halis gelinayso xasiloonida ay heshay Soomaaliya. waxaana sidoo kale ay dhaawacaysa ayaa lagu yiri xiriirka Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska la. Midowga Yurub waxay ku baaqeen in la qaado tilaabo degdeg ah oo lagu qaboojinayo xiisada taagan. Yurub ayaa sidoo kale dalbatay wada shaqayn buuxda oo dhaxmarta dawladda federaalka, dawlad goboleedyada iyo wadamada saaxiibada ee gobolka. dhammaan dhinacyada ku lugta leh arrintan ayay ka dalbadeen Midowga Yurub inay qaadaan tilaabo lagaba maarmaan ah oo lagu qaboojinayo xiisada si meesha looga saaro loona xakameeyo in dhinacyada kala duwan ay isku dhacaan iyadoo la ilaalinayo madax banaanida xuduudeed ee dhinacyada ay xiisadu u dhaxayso. Midowga Yurub ayaa sheegay inay muhiim tahay in xasiloonida iyo wada shaqaynta ay dhaxmarto dawladda Soomaaliya, Kenya iyo sidoo kale Ethiopia xuduudaha ay wadaagaan iyo danaha ka dhaxeeyana ay ilaashadaan. Midowga Yurub sidoo kale waxay sheegeen in taageeritaanka military iyo midda dhaqaale ay siiso Soomaaliya ay ka dhigan tahay in lala xisaabtamayo haddii ka soo bixi waayaan xisaabtaasna ay Midowga Yurub qaadayaan tilaabo kaseeto ay uga jawaabayaan marxaladda markaasi taagan. xaaladda military iminka waxaan ku baaqaynaa in wada shaqayn iyo sidoo kale wada xaajood lagu dhameeyo lana fuliyo isfaham iyo wadajir la isku raaco siyaasad iyo sidoo kale hal dhaqaale oo lagu wajahayo wadamada gobolka ayaa lagu yiri qoraalka Midowga Yurub oo iyagu ka hadlayay xiisada u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood. wada xaajoodku waa qodob muhiim ah oo xoojinaya wada shaqaynta waxauna yahay wax ku ool u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee ku dhisan isla xisaabtanka ayaa lagu yiri iskaashiga warka ka soo baxay Midowga Yurub oo dawladda Soomaaliya loogu sheegayo inay guud ahaan xakamayso dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Soomaaliya si meesha looga saaro in xasilooni dar ay dhacdo. hadalka ka soo yeeray Midowga Yurub ayaa ku soo aadaya iyadoo wax heshiis aan laga gaarin khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda Soomaaliya qaarkood. arrinta ugu weyn ayaa xiisada u dhaxaysa maamulka Jubbaland iyo sidoo kale midda u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland. siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa qaadacay shirka iyo ka talinta Puntland iyo dhalinyaro kana dhacay magaalada Muqdisho ayaa looga wada hadlay shirka iyo ka talinta Puntland ee Garowe
waxaana odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay sheegeen inay qaadiceen shirkaasi islamarkaasna aysan ka qayb galeen ayagu oo aysan qayb ka ahayn. mas-uuliyiinta shirkaasi hogaaminaysa ayay ku eedeeyeen inay ka shaqeynayaan wax kasoo horjeeda danaha qaranka islamarkaasna ay doonayaan sadbursi gaara sida hadalka u dhigeen. kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ay siyaasiyiinta iyo waxgaradku kaga areysanayeen aayaha gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo waxa ay ka yeelayaan iyagoo ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan dowladda federaalka Soomaaliya islamarkaasna ay dowladdu ay ka gacan siiso sidii horumar looga sameyn lahaa baahiyada kala duwan ee ka jira gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa ku eedeeyay maamulka Puntland inuusan ku dhisnayn hab cadaalad ah islamarkaasna ay dad gaar doonayaan inay afduub ku sameeyaan masiirka guud ee gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn, taasoo ay sheegeen inay tahay mid aan la aqbali karin. shirka ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan ay ka qayb galayaan shirka magaalada Garowe, waxaana hoosta ka xariiqaya in dadka kasoo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay si weyn uga soo horjeedaan shirka iyo ka talinta Puntland. arrintan waxay cirka kusii shareeraysaa xiisada ku aadan habqaybsiga maamulka Puntland oo ayagu dadka kasoo jeeda gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ay u arkaan inaysan ahayn mid cadaalad ah sida ay qabaan odayaasha iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda goboladaas. dhowaan ayay markii madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu cilaamiyay shirweynaha looga hadlayo aayaha Puntland, waxaana muuqata in gobolada intooda badan ay maamusho Somaliland ee Sool, Sanaag iyo Cayn ay arrintaasi qaadaceen oo aysan ka qayb galeen. balse qaar ka mid ah siyaasiyiinta xilalka ka haya maamulka Puntland ee kasoo jeeda goboladaas ayaa iyagu shirka ka qayb galaya iyagoo sheegay inay matalayaan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn. arrintaas oo ay ka digeen odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta goboladaas ee ku shiray magaalada Muqdisho. si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambeete waxa isu soo taraya dadaalada maamulka Puntland uu ugu jiro inuu soo saaro warar kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya ayna ka arrinsadaan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Puntland halka Soomaaliya ay u socoto iyo siyaasadda doorashada Soomaaliya ee sanadka 2021. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa qorsheynaya inuu xilalka ka qaado qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir oo uu ku eedeeyay inay ku fashilmeen hogaaminta iyo xasiloonida degmooyinka ay maamulaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa horey u ballan qaaday inuu ilaalin doono qof walba oo ku xadgudba nidaamka ka jira gobolka Banaadir oo la xisaabtami doono islamarkaasna qofkii kasoo bixi waaya shaqadiisa uu xilka si degdeg uga qaadi doono asagoo xilkaas u magacaabayo qof kasoo bixi kara. isla xisaabtan dheer gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qorsheynaya inuu xilalka ka qaado qaar ka mid ah gudoomiyaasha oo ku eedeeyay inay ku fashilmeen xasiloonida degmooyinka ay maamulaan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo maalmihii ugu dambeysay kormeer iyo kulamo kala duwan waday oo looga hadlayay dardargelinta ammaanka magaalada Muqdisho iyo isla xisaabtanka gudoomiyaasha degmooyinka ayaa ku koodiyay inuu xilalka ka qaadayo inta badan gudoomiyaasha degmooyinka oo iyagu uu sheegay inay ka gaabiyeen ka shaqeynta xasiloonida degmooyinka iyo sidii loo horumarin lahaa. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in mas'uul walba lagula xisaabtami doono xilka uu hayo qofkii kasoo bixi waayana uu maamulka gobolka Banaadir tilaabo ka qaadayo. qaar ka mid ah gudoomiyaasha oo uu la kulmay ayuu kala hadlay sidii loo dardargelin lahaa ka shaqeynta horumarka iyo ammaanka magaalada Muqdisho, waxaana sheegay in cid walbeed uu kula xisaabtami doono shaqada ay hayso. gudoomiyaasha gobolka Banaadir ayaa iyagu iminka waxay arkayaan tilaabooyinka uu qaadayo Cumar Finish inay keeni karto inay xilka ku waayaan iyagoona dadaal iyo firfircooni dheer iyo muujinaya. lama oga dadka uu xilka ka qaadi doono gudoomiyaha gobolka Banaadir tiradooda iyo sidoo kale degmooyinka ay ku sugan yihiin, balse mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay inay miiska saaran yihiin tilaabooyin uu xilalka uga qaadayo qaar ka mid ah gudoomiyaasha maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan Cumar Finish oo isagu isbedelka daneynaya.
Cumar Finish ayaa markii la magacaabay dardar galiyay ammaanka magaalada Muqdisho wuxuuna ballan qaaday inay adkeyn doonaan guud ahaanba xasiloonida magaalada Muqdisho oo iyadoo ah xudunta ummadda Soomaaliyeed isla markaasna inta badan ay ka dhacaan falalka amniga ka soo horjeeda. dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday in 4 dal oo kamid ah wadamada caalamka kuwooda ugu waaweyn dadkooda ay yimaadaan gudaha Soomaaliya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mamnuucday dadka ka imaanaya 4 dal oo kuwa sida baan ugu faafay cudurka coronavirus taas oo ay dowladdu diiday in dadkooda ay soo galaan gudaha Soomaaliya. qoraal ka soo baxay hay'adda duulista rayidka iyo saadaasha hawada Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay in dalka Soomaaliya ay soo galaan dadka ka imaanaya dalalka Shiinaha, Talyaaniga, Kuuriyada Koonfureed iyo Iiraan. qoraalka sidoo kale waxaa lagu mamnuucay in dalka ay soo galaan dad kale oo ka yimaada dalal kale balse soo mara 4 dal ee ay dowladdu mamnuucday dadkooda inay soo galaan guud ahaanba Soomaaliya iyadoo ay 14 maalmood kaliya ay tahay tirada guud ee maalmaha ay soo moogayeen dalalka uu sida baan uga jiro xanuunka coronavirus. 4 dal ee ugu xun ee saameynta ku yeeshay cudurka coronavirus ayaa hadda waxa ugu daran dalalka Talyaaniga, Iiraan, Kuuriyada Koonfureed iyo dalka Shiinaha waxayna yihiin dalalka ay sida weyn iminka dowladda Soomaaliya u mamnuucday in dadkoodu ay u soo galaan gudaha Soomaaliya. qoraalka dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in tilaabadan looga gol leeyahay ka hortagga cudurka sii faafaya ee corona. dhammaan shirkadaha kala duwan ayaa loogu baaqay inay u hoggaansamaan amarka dowladda. tilaabadan ka soo baxday dowladda Soomaaliya waxay meesha ka saaraysaa in dad ka soo jeeda 4taasi wadan ay yimaadaan gudaha Soomaaliya iyadoona wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale laanta socdaalka Soomaaliya iska kaashanayaan sida loo fuli lahaa amarka dowladda ka soo baxay. wali waxa daawanaysaan wararka Garaa TV daawadayaal waqti wanaagsan imika akhbaraadka caalamka. tiragan taalla ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada Mareykanku ay wax ka degan yihiin oo ku yaala meel aan sidaas uga fogeyn magaalada Baghdad ee wadanka Ciraaq. tirada gantaalaha ayaa mar kale lala beegsaday saldhigga Ataaji ee waqooyiga magaalada Baghdad halkaas oo ay saldhig u ah ciidamada Ciraaq iyo sidoo kale kuwa heshiiye ee dalkaasi jooga sida la waraadiyo ka tirsan Ciraaq iyo Mareykanku ay u sheegeen wakaalada wararka AFP. Tali al-Qaa'id oo afayeenka howlgallada ciidamada Ciraaq ayaa sheegay in 2 kamid ah ciidamada difaaca cirka Ciraaq uu dhaawac culus soo gaaray weerarkaasi. weerarkan waxa uu ahaa kii 23 iyo dabayaaqadii Oktoobar sanadkii hore kuwaas oo loo geystay xarumo ku yaala wadanka Ciraaq oo ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka iyo diblomaasiyiin. weerarada ayaan jirin cid sheegatay mas'uuliyadooda laakiin Mareykanka ayaa ku eedeeyay canaasir ka tirsan kooxda Hashid al-Shacbi oo ah shirkada koox hubeysan ah oo gacan saar la leh dowladda Ciraaq. weerarka ayaa yimid 3 maalmood kadib markii weerar sidan oo kaleeta ay ku dhinteen 2 kamid ah askarta militariga Mareykanka iyo sidoo kale askari British kaas oo ku dhintay weerar ay soo qaadeen kooxdan oo aan la garanayn iminka ilaa iyo haatan meelaha ay weerarka ka soo qaadayso. xiisada u dhaxaysa isbahaysiga ee ku sugan gudaha wadanka Ciraaq iyo sidoo kale kooxaha ka soo horjeeda ayaa cirka isku sii shareeraysa. horey ayay ahayd markii Mareykanku uu shaaciyay inuu dilay madaxii ciidamada wadanka Iiraan ee wadankaasi Ciraaq Qaasim Suleymani oo asaga saameyn badan ku yeeshay xiisada wadamada bariga dhexe. ugu dambeyntiina xukuumadda Tehran ayaa u yeertay ergeyga Switzerland u jooga magaalada Tehran isla markaasna matalaya danaha isbahaysiga Mareykanka kadib markii Washington ay ku eedeysay Iiraan weerarkii ugu dambeeyay ee lagu dilay 2 xubnood oo ka tirsan adeegayaasha Mareykanka ee Ciraaq. Danjire Magros Ledner ayaa loogu yeeray wasaaradda arrimaha dibadda
waxaana looga digay cawaaqib xumada ka dhalan karta tillaabooyinka aan wanaagsaneyn ee uu qaadayo Mareykanka sida lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Iran kadib hadallo aan sal iyo raad lahayn oo madaxweynaha dalka Mareykanka ku sheegay in Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran ay lagula xisaabtamayo weerarkii lagu qaaday saldhigga ciidamada isbahaysiga ee Al-Tajiye safiirka Switzerland ee Tehran oo matalaya danaha Mareykanka ayaana waxa uu yeeray agaasimaha General of America ee wasaaradda arrimaha dibadda afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Sayid Abbas ayaa waxa uu yiri hadal uu soo saaray wakiilka danaha Mareykanka ayaa kulanka loogu sheegay in halkii uu ku eedayn lahaa kuwa kale madaxweynaha Mareykanka uu aqbalo runta ku saabsan siyaasadda qaldan ee Mareykanka ee ku saabsan joogitaanka sharci darrada ee Ciraaq iyo dilkii taliyihii Ciraaq askartaasi oo noqotay sababta ugu weyn ee nacaybka dadka reer Ciraaq ay u qabaan Mareykanka ayaa lagu yiri hadalka uu soo saaray Musafi si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambeeta waxaa soo tarayay xiisada isbahaysiga Mareykanka iyo sidoo kale Ciraaq ka taagan oo iyadu u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale waddanka Iran waxaad naga daawanaysaan Garaa TV daawadayaal waqti wanaagsan meel walba aad joogtaan inta ku kulmi doono wararkan warar lamid ah. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.